aan ka cabanayna waxa weeyaan wadadii isku xiri jiray ee gobolka Gardafu ee laftabarka waxay isku xirtaa ilaa kala beer caluula wadada oo muhiim u ah ayaa hadda go'an oo roobab lixaad leh oo daay ilaahay ma had iska leh roobab baa daay roobabka darteeda in arrintaas ku dhacday wadadu imisa meelood ka go'an tahay walaal wadadu 35 kilomitir baa hadda go'an oo wadada dhererkeeda ah si halisayna u gooday waxaad ka warantaa nolosha dadkii deegaanadaas ku teedsanaa xaalkooda muxuu ku sugan yahay haddii wadadii halbowlaha u ahayd ay go'an tahay walaal dadkan waxay ahayd wadadan ayaa ahayd socodkooda nolol maalmoodkooda ay usoo mari jireen wadadu way go'an tahay dadku aad iyo aad baa awalkii hore roobab baa jiray oo wadadu dhiiri bay ahayd gaadiidku waqti badan buu haagayay wadaduna waxay ahayd wada aad markastaba maaragtay halbowlo u ah deegaankaas hadda dadku xaaladooda waxay ku sugan yihiin xaalad aad siirayos oo ah laanna waxa agaba ay haystaan haba yaraatay oo cunto ama jiraanin xagga badda ma laga soo geli karaa sida doonyihii badda hadda waqtigii dabaylaha ayaa jira oo badda hadda way kacsan tahay haddaynan kolley ayn degin badda laftarkeeda gaadiidkii badda oo ilaa 32 gaadiid ayaa burburay oo u badan doonyaha yemaniyiinta ay wataan sixmada ay wataan hal qof ayaa hadda ku dhaawacmay gaadiidka badda saaran ah hal qofna gacan buu ka jabay laba qof ayaa ku dhaawacmay qof dhabar ka jabay iyo qof gacan ka jabay adigu ma tagtay meeshan hadda wadadu ay ka go'an tahay waxaad ii sheegtay bareeda adigu inaad ku sugan tahay anigu wadada meesha ay ka go'an tahay anaga bareeda markii ay gooda wadadan waxa usoo raacay inta badan soo maray hadda aniga markii ay wadadu gooda waan dhex taagay sawirradii aan ka soo duubay way ku jiraan meel kasta wadaduna inteeda badan ma aana marin laakiin wax yar baan ka maray inta badanna dad badan oo deegaanka laga diray oo ayaa iyadana soo kormeeray wadada waa wada aan isla naqaano oo aan u naqaanaa xabad u naqaanaa shubabkeeda iyo meelaha ay siday khatarta u kala mudan tahay meel kale laga leexiyo ma la heli karaa haddii la damco wadadii in la sameeyo oo kale wadada meel laga leexiyo male dhinacna baddi baa ka soo garaacaysa dhinacna waa buurtii awalba waxay ahayd jeex laga dhex jeexay badda dhinaca buurta iyo badda dhexdooda meel laga leexin karo haba yaraatee ma jiro laakiin dhulkan haddii la helo qalab iyo waxa weeyaan waxqabad wanaagsan waxbaa laga qaban karaya haddii laga qadaro inkasta waqtigeedu maaragta waqti dheer lagu jiraayo عمر محمود وعمر خريب لو يقانو dadka deegaanka xalulayo maartay gobolka Gaarkabo inuu xisbi uu ka taliyo loo dhaafo isagu samaamuul soo rabo ka yeelo marka nidaamkii federaaliga ah isagoo waa lagu sameeyay inuu marka horeba aqab uu shaqeynay inay ahayn wax cadaalad ku salaysan oo afka uu laga maartay bishmaha baalkooda uu laga sheegay laakiin waxaba yaraatay xuquuq ah oo dadkiisa badan ay helayeen isjirin la xabulinay marka nidaamkan hadda yimid nimankan hadda ay sameynayaan EBRF-ka walow ayagii laftooda isku wada raaceen oo qaar ka baxeen sida EBRF-ka waxaan u arkaa haddii si fiican loo maamulo in uu ka wanaagsanaan karo dibna uusan ku ahayn shaqaysiga ama qaabkii qowmiyadaha ku dhisnaa inuu dib ku ahayn hadda iyaga aynan dib ka dhigin soomaalida markaad eegto xisbigii dimuqraadiga soomaalida wuxuu ku biirayaa EPP arrinta laga walwalsan yahayna waxa weeyaan xubnaha laga heli doono xisbiga guud ee EPP oo leeyahay guddiga fulinta tiradooda way yar tahay golaha dhexna way yar tahay soomaalida inay ku qadamo laga yaabaa meeshaas sidii loo dhigay noqonaysaa waxaan hadduu dimuqraadi yahay xisbi qaran oo dimuqraadi uu yahay dimuqraadina sidiisa waxa weeyaan dadka badanna siday wax u rabaan buu socdaa dadka yarna oo laga badan yahayna ra'yigooda la dhegeysta oo la qadariyaa marka soomaalida 100 milyan bay ka mid tahay oo Ethiopia ay ka badan ayay ka mid tahay wixii ay xaq u leedahay inuu ku soo aado dadka galayana ay noqdaan dad tayara oo danta soomaalida u adeegayo waxay xaq u leeyihiin inay helaan uu ku soo aado inta fumaaskeedaba Axmed Karim tifeegu way maqan yihiin oo gobolkoodii waa careysan yahay xisbiga cusubna kuma aysan biirin soo dhaawac kuma keenayso geedi socodkan adii uu wado runtii oo markaad fiiriso siyaasadda kiitarafo kale leedahay waa urur weyn oo runtii aabaha u ahaa waxaan hadda federaalku lagu sheegayo waxaan u leeyahay lagu sheegayo waxa weeyaan sida dee ku qoran dastuurka iyo sida warqadaha xaashiyaha ku qoran waa wax fiican laakiin laguma dhaqmin marka
ayaa laga hormarinayay marka qofka haddii danihiisa la taabto wax badan baa dhacayo dad fara badan baa runtii xagga dhinaca horumarka oo kale dad waxaa jiro maaragtay awood leh oo culays badan siyaasadeed leh xaggaasi waqooyiga tigreega sidoo kale amxaaradii xagga dad soo sokoro oo laga helayaa jiro dadaalkay wadaan international community xaggiisana waxa weeyaan maaragtay niyad fiican baa loo hayaa sida muuqato laakiin waxaa la hubaa inay caqabado xoog leh oo maaragtay waxaani ka horiman karo amaba xataa dhicisayn karo inay jiraan wax la inkiri kara maaha dhinaca qowmiyada waaweyn xaggeeda haddii la fiiriyo soomaalidana waa sidoo kale axmed cabdikariin waa siyaasi addis ababa jooga baarlamaankii hore ee federaalka etoobiya ayuu xubin ka ahaa dadka telefoonka ayuu igu warramayey haatanna iiraan madaxweyne ku-xigeenka iiraan ayaa u digay wadamada gobolka isagoo sheegay inay cawaaqib xumo kala kulmi doonaan haddii ay ku caddaato inay soo faragashtaan dibadbaxyada ka dhacaya dalka iiraan dibadbaxyada ka dhacaya dalkaasi ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen dad gaaraya 100 qof dibadbaxayaashu waxay ka cabanayaan qiimaha shidaalka oo ay dowladdu sare u qaaday iyadoo ay dowladdu qiimuhu ku kordhisay 50% waxayna xukuumadda Tehraan hawada ka saartay adeega internetka ee dalkaasi Kawsar Maxamed ayaa warkaasina inoo haysa saraakiisha Iiraan ayaa sheegay in gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa waxa uu dhignaa sidani xisbiga wadani ayaa cambaariyay ku xadgudubka shuruucda ee xukuumaddu kula kacayso xisbigaasi 17 November waxa gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ugu baaqay taageerayaasha xisbiga inay isugu yimaadaan xarunta dhexe ee Hargeysa taasoo uu ogolaanayo xeerka nambarkiisu yahay 51 waxaana taageerayaasha lagala hadlayay xulista gudida doorashooyinka isla fiidnimadii maalintaasi waxay xukuumaddu qaaday talaabooyin sharci darro ah waxa xisbiga laga xidhay afayeenkii xisbigaasi Barka Jaamac Batuun oo la geeyay saldhigga dhexe ee booliska waxa uu koomo galay tacaddi ay kula kaceen ciidamada boolisku loomana ogolayn daaweyn caafimaad xogiyihii guud ee xisbigaasi Khadar Xuseen Cabdi oo saldhigga u tagay inuu wax ka ogaado xadhiga afayeenka ayaa isna xabsiga la dhigay labadan sarkaal oo ka tirsan xisbiga ayaa isla habeennimadii la geeyay xabsiga Mandera oo Hargeysa u jira 90 kiiloomitir in saraakiisha la geeyo xabsiga Mandera waxaa markaasi bixiyay madaxweynaha oo aan raacin sharciga laakiin adeegsaday awood cadaawad ku dhisan waana aftuub sharci darro ah dowladdu waxay la wareegtay xarunta xisbiga wadani waxay geysay ciidamo hubaysan waxaana la jaray wadooyinka gala xarunta dhexe ee xisbiga wadani waxaana ciidamada ammaanku ay dhigeen dhagxaan waaweyn xarasaas laga dul riday hoggaanka xisbiga oo isku dayay inay galaan xarunta laakiin cidi waxba kumay noqon taageerayaasha wadani inkastoo ay tacadiyo kala kulmeen ciidamada ammaanka waxay yimaadeen xarunta dhexe hoggaanka xisbiga ayaa iyaguna ku guuleystay inay galaan xarunta oo ciidamada haystay isku dayeen inay ka horjoogsadaan hoggaanka xisbigu waxay fariintan gaarsiinayaan taageerayaasha iyagoo cambaaraynaya saraakiisha xidhan taageerayaasha ayaa u dareeray si nabada iyagoo dhowraya sharciga caasimadda iyo qarankaba gudoomiyaha xisbiga wadani waxaa dowladda ugu baaqayaa inay sii dayso saraakiisha sida sharci darrada loo xidhay waxaanu ku baaqnay banaanbaxyo ka dhaca gobolada oo la sii wadi doono ilaa inta la sii deynayo saraakiisha xabsiga ku jira sida caadiga Somaliland marka ay dhibaatooyin ka dhacaan waxa wax xaliya xubno ay ka mid yihiin madaxweyne ku-xigeenka hore madasha wada tashiga odayaasha SNM ganacsato iyo hogaamiyaasha diinta ayaa sameeyay guddi qaran oo mushkiladaasi wax ka qabta waxdaasi waxay la kulmeen hoggaanka xisbiga wadani oo ay ka codsadeen inay hakiyaan banaanbaxyada si ay madaxweynaha ugu qanciyaan inuu sii daayo dadka xabsiga ku jira hoggaanka xisbigu waxa uu aqbalay inuu joojiyo banaanbaxyada caasimadda iyo gobolada oo ay natiijo ka sugayaan gudida dhexdhexaadinta waxaa xisbiga wadani fursad siinaya danayaasha caalamiga inay dadaal ku bixiyaan taageeridda wax ka qabashada dhibaatadan taagan ma jirto jawaab laga hayo madaxweynaha saraakiishuna weli xabsiga ayay ku jiraan iyada oo aan loo ogoleen inay booqdaan eheladooda iyo xisbiguba waxaa boolisku kala wareegeen gaadiidkoodii iyo teleefoonadoodii waxaana xanuunsanaya afayeenkii xisbigaasi Barka Jaamac Batuun xisbiga wadani waxa uu xaq u leeyahay inuu abaabulo shacab ka hor yimaada talaabooyinka kaligii talisnimada ee maamulka xisbiga kulmiye ee madaxweyne Biixi Guulad Cunaabi telefishan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad
gudoomiyaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Somaliland garyaqaan aadan xaaji cali axmed ayaa maanta madaxweynaha hortiisa ku dhaariyay xubnaha cusub ee komishanka doorashooyinka qaranka ee ay dhawaan ansixiyeen golaha wakiilada ee Somaliland. xubnaha cusub ee komishanka doorashooyinka qaranka ayaa la mariyay dhaarta dastuuriga si ay u gudagalaan gudashada shaqooyinka loo igmaday. bismillaahir rahmaanir rahiim. waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga Somaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo. billahi tawfiiq. waxaana goobjoog ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo halkaasi kula dardaarmay kadib markii uu gudoomiyaha maxkamadda sare dhaariyay xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka. Cabdikariim Saciid Saalax, Dowladda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u magacaabay mudane Suleymaan Maxamed Maxmuud xilka xeerlaaliyaha guud ee qaranka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. waxa uu xilka qaadis ku sameeyay xeerlaaliyihii guud ee hore mudane Axmed Cali Daahir. magacaabistan ayaa timid soo jeedinta gudoomiyaha maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya garyaqaan Baashi Yuusuf Axmed baahida loo qabo in la dardargeliyo howlaha dib u habeynta garsoorka iyo xaqiijinta hanaanka cadaaladeed ee hufan oo ka dhaqan gala guud ahaan dalka. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa faray xukuumadda una jeediyay hay'adaha sharci dejinta inay soo dhameystiraan golaha adeega garsoorka lana waafajiyo dastuurka ku meel gaarka ah iyo xeerarka khuseeya dhismaha golaha si loo dhameystiro dib u habeynta garsoorka iyo hanaanka cadaaladda ee dalka. madaxweyne Farmaajo ayaa kula dardaarmay xeerlaaliyaha guud ee la magacaabay inuu waajibaadkiisa shaqo u guto si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala una shacabka Soomaaliyeed u adeego si hufan oo cadaalad ay ku dheehan tahay. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu mahadceliyay xeerlaaliyihii hore ee qaranka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Axmed Cali Daahir shaqadii uu soo qabtay dalka dadaalkii uu muujiyay muddadii uu xilka xeerlaaliyaha guud ee qaranka hayay. maxamed qays xasan cusub imanayo xilka waanu haynana shacabkana waxaan weydiisanaynaa inay noogu duceeyaan in ilaahay xilkaan noo fududeeyo. 2 sano waa yar tahay hadda dib waxayna ka tagay 2 inta lagu murmayo komishankan oo kale lagu murmi doonaa. waxa kale uu gudoomiye Baasha ka jawaabay eedeymaha xisbiyada mucaaradka Somaliland ay u soo jeedinayaan golaha wakiilada Somaliland ee muddo kordhinta loo sameeyay iyo sidoo kale eedaha ay madasha wada tashiga Somaliland iyaguna ay u soo jeediyeen. aniga ay wax khuseeyaan wax xisbiyadu yahay xisbiyadu waa xisbiyo qaran shaqay leeyihiin. marka ugu horeeya waxa laga rabaa in shuruucda dhowraan qofkii ay sharciga dhowrina wuxuu xisbi ku yahay waa sharciga laakiin hadda yiraahdaan waa sharci darro waxa weeye iyaguna sharci darro ay noqonayaan. laakiin waxa weeye korinta waa sharci odayaasha madasha iyagu waxay haystaan waa mujaahidiintii soo dagaalantay waxay haystaan geeray leeyihiin in la maalayo marka iyagu waxay yiraahdaan fasax u haystaan odayaasha madashu laakiin xisbiyada qaranku uma haystaan xaqna uma leh inay yiraahdaan wixii golayaashu ka soo baxeen waa xaaraan. waxa weeye maalintii horena waxa laga cadanayay waa commission doorashooyinkana waxa dib u riday komishankii la lahaa 2 sano waa xaaraan oo la shaqayn mayno. haddana waxaan arkay xisbiyada mucaaradka mid ka mid oo shahaado sharaf siinaya shahaado sharafka kii siiyay waa haddana kii kale la qabanaya waa xaaraan. madaxweynahana waa madaxweynaha